bismillahi raxmaani raxiim. Maanta oo maalin sabti ah waxaanu joognaa magaalada Laascaanood xaruntii gobolka Sool. halkan waxaa fadhiya salaadiintii gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn. sidaad nooga barateenba annaga hadalkayagu ma badna, laakiin marka wax jiraan maalintii horena waan sheegay inaanu hadallo oo weliba hadalkaanu maanta ku hadlaynaa uu noqdo kii ugu dambeeyey waa waajib wey. xalayto waxaa miidiyaha la geliyey nin runtii anigu aanan garanayn, laakiin yidhi Suldaan baan ahay, laakiin uu ag fadhiyey Suldaanka Guud Suldaan Daa'uud oo uu yidhi wafdi baanu nahay dhaqan ah oo erga ah oo Laascaanood ku socota oo garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo garaadada kaleba ay noo yeedheen. warnimayow arrinkaasi waxa weeye ninkii maamaahay wuxuu yidhi geel waana hori jirnay waana hayn jirnay. war erga waa naqaanaa, waana naloo geli jiray, waananu geli jirnay. erga labay ku timaadaa: erga iskeed u soo dhaqaaqday marka wax dhacdo oon cidna waxba weydiin oo meeshii wax ka dhacay soo fadhiisata, iyo ergo intay soo hadasho loo diyaar garoobo. waa mid subxaanallah weeye. labada erga midna annagu ma hayno. erga waxaanu haynaa war sheegaysa aan jirin oo ilaa Muuse gaarsiisay oo aanu ka hadalnay. war waxaanu maanta caddaynaynaa inaan anagu cidna u yeedhin. waxaanu caddaynaynaa inaan cidina la soo hadlin. waxaanu caddaynaynaa cidna la soo xidhiidhay midna ayna jirin. Suldaan Daa'uud waxaan leeyahay agtaadu fadhiyay ninka hadlaya yidhi Suldaanka Ayuub baan ahay. anigu Ayuub waan aqaanaayo Suldaan Uwaas Axmed baan aqaanaa. mar haddii Suldaan Daa'uud agtaada uu fadhiyo waftigaagana uu ka mid yahay oo uu leeyahay Suldaanka arrinkaas wax ka og oo garaadadii iyo waxa weeye uu la soo xidhiidhay, waad ogtahay Suldaan Daa'uud oo labadeenu maalintii Ilaahay u naxariistay aabbaha dhintay ayaan ku tacsideynayay baa teleefankeena isugu dambeysay. dhowr jeerna xafladeen isugu nim ilamaad soo hadlin. garaadadan gobolada Sool iyo Sanaag lama soo hadlin. mar hadday sidaa tahay Suldaan waxaanu ku leenahay beelaha garxajisna warkoodu waanu maqalay oo bayaankoodu waa dhegeysanay. berberaad maraysaa iska noqo oo tolka go'aankay qaateen la qaado oo iska noqo. annagu waxa weeye Suldaan lama aan soo hadlin, kulama aan soo hadlin. ummadana waxaan u sheegaynaa mar haddii hadalku soo noqnoqday war hal la ogaado. warhoy annagu cidna umaanaan yeedhin, cidna la soo hadashanay ma jirto. ummadda islaamka waxaan u sheegaynaa, ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa, walaalaha waqooyiga u sheegaynaa in ergadan soo noqnoqonaysa ee lagu been abuuranaya inaanay jirin. waar ma jirto. war dhaqanku saa ma ahaan jirin. war dhaqanku labada qodob buu ku imaan jiray. erga waxa weeye annagu marka wax dhacaan toos baan u tegi jirnay annagoon cidda la hadlin, iyo ergasha soo sheegto la soo dhaweeyo. war mar haddii aad war aan jirin ka soo horeysiinaysaan oo aad annaga waxa weeye war aan jirin naga sheegaysaan, sidee baad erga u noqonaysaan? sidee baad waxa weeye wixii la idiin dhiibana aad run uga sheegaysaan? mar haddaa sidaa tihiin waad fashilateen. iska noqda, iska noqda. warkaasuna maanta halkaa ha ku hadho. beelaha garxajisna waxaanu leenahay iyadoo layga dambayn doono dee raggii dhaqanka ahaa ee ummaduhu markay islaayaan waxa weeye xaajaqaadka abaati sidaa aad waxa weeye go'aanka fiican u qaadateen ee walaalihiina dhiigooda aad waxa weeye wagli gadateen ee aad u leedihiin muxuu ahaa qodobada adag aad u soo saarteen, waa dhaqankii la arki jiray weye. waana raggii wixii lidinku yaqaanay weye. beelaha kalena waxaanu leenahay haddeedan arrinkan raalli ka ahayn sidaa uga hadla. asalaamu calaykum waraxmatullahi raxiim. bismillahi raxmaani raxiim. saxaafadda iyo golahan aanu joognay odayaasha dhaqanka iyo cid kasta oo fideoga daawata waxaan ku salaameynaa salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaanu rabnaa hadalku badaysin baa yiri, hadalkaygu maanta ma badna. warar fara badan oo intaas hor iyo daba maraya oo si dadka jaahwareer u geliyay unbaa lagu kalifay kelmada laga yiraahdo. kow, annaga horta ma diidin nabadda. labo, ma diidin xabad joojin. laakiin wax si saxa oo toos u socda ma baanu aragba. marba hadal meel laga soo duubayo iyo kelmado la warfinayo iyo qaarna terrorism aan la dagaalamaynaay kulli bilaada ku dhari way dhigaysanayeen. marka bal qolyaha waxaan la marba hadalkina saxa oo hadalkinu jaha uu ha qabsado ama xabad ha qabsado ama xabad joojin iyo nabad ha qabsado. qolyaha taasaan oran lahaa oo bahasha iska saxa. haddii nin wala soo doono isaga hadlo mid media wax ku soo qor mid cid baan la hadlay mid halka terrorism baan dagaalamayna oo wax la yaab leh. war bal si saxa tadilaahi ka baqdaan.
waayahay erganimada dadku waa Soomaali waa la yaqaanaa dhaqanku wuu soo hadla waa la wada hadlaa hagee isugu nimaadna waxaynu yeelnaa haataa ah halkaas processkaas waa loo soo maraa qaar iska soo duulo oo markuu isoo taagay weydila joognaana waa la arkay laakiin mid isagoo gurigiisa jooga iska leh hebel baan la hadlay halkan aan ka hadlay oo baraan baxaya oo waxyaalaha ku cusub kulli dhaqanka aynu niqiin hadalka odayaasha hore soo ururiyay aad u talax tagi maayo wixii arrin weynoo dambeyn doonaan waayeelka garxajis ee sharafta badan ee sida fiican u hadlay waa sidii guurtinimada ahayd ee la yiqiin ee ku saleysnaanaysa dhaqanka Soomaalida aad iyo aad baad u mahadsantihiin cid kasta waxaan u cadaynaynaa xabad joojin iyo nabad baa la diiday cid ku marmarsoon doontay waa been wax u socda iyo wax wada saxan haya midna ma aan arag salaam calaykum kadib karataab hadalka uu yiri inteedoo dhan waa la qabnaa ana waa ku raacsanahay isagoo dhan waa hadal uu yiri oo lagu tashaday taasoo waa intaa hadalka kale isaga ka jawaabay waxaan la adkeynayaa ta xagga garxajka go'aankiisa ku saabsan dowladda ama Soomaaliya taariikh bay leedahay iyada oo dowladnimada Soomaaliyeed aan hadalhayn reedab khaatimo meel la yiraahdo yay fadhiisteen nimanka garxajis waxay ku baaqeen Soomaalida socodaysa nabad iyo dowlad gudub waa taariikhdoodii tan maantana sidaa ay u hadleen waa tala aanu isla dhiqin weligayana horaan u idhi tala iyo tayiisa naga dhaxaysa waxa uu laho weyna kuma kala hadno weligayaba iminkana waxaan leenahay waa soo dhaweynaynaa go-aankiina waana ku shaqaynaynaa meelaha kalena dee ciddii garashadaa leh ha laga arko asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu